iyadoo maanta ay qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan xaafadda Dhoobane oo ka tirsan degmada Maxamed Cali ee magaalada Burco ay ka cawdeen qashin iyo geedka garanwaaga ayaa maamulka dawladda hoose ee degmada Burco ay ka jawaabeen cabashadaasi iyagoona nadiifiyay goobtii qashinku yaalay goobtan oo hore u ahay meel aan dadka iyo gawaadhidu mari karin ayaa hadda ah meel bannaan oo nadiif ah qaar ka mid ah dadka ku nool xaafadaasi ayaa mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Burco uga mahadnaqay sida wanaagsan ee ay uga soo jawaabeen cabashadoodii taaka waxaanu ka cabanay ayga iyo garanwaaga hadaan nahay xaafadda Dhoobane waxaanu ka cabanay garanwaaga iyo ayga iyo tuuga sakhraanka xabaglaha waxaanu u cabanay dawladda hoose waxaanu cabashadayadii maatidii saaka cabatay ee qaylisay ee qaycag iyo codba isku dirtay waana looga soo jawaabay si sharaf leh ragayagii madaxda ahaa iyo dawladayadii way nooga soo jawaabeen waxay nooga soo jawaabeen si wanaagsan oo xilkasnimo leh waxa weeyaan xashiishkii goorta duhurka la tukanaya bay xaarayaan baadkaasay u soo bareereen iyagoo sooman waxa weeyaan gudoomiye waaxeedkayagii Maxamed Cali 15 xaafadood u gudoomiye ah Xasan Xoosh xildhibaanadii way noo dhan yihiin iska rogooyinkii cagafyadii dhalinyaradii dawladii daragii waaweynaa sharafta lahaa wayna daneeyeen canaantayadii iyo oohintayadii way daneeyeen way noo yimaadeen waxaan ugu mahad celinaa dawladda hoose Burco oo loo soo gurbatay oo aad iyo aad nogala qayb qaadatay xashiishkii xaafadda Dhoobane anigoo ah gudoomiyaha xaafadda Dhoobane waxaan halkan uga mahad celinayaa xildhibaanada gudoomiye waaxeedka xaafadda Maxamed Cali oo aad iyo aad ugu soo gurmaday oo xashiishkii nagala qayb qaatay oo cagafyadii iyo noo kaliis rogooyinkii aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa saaka xaafadda cabashadii ay bixisay waa laga soo jawaabay dawladna waa tii jawaabta haddaana bulshadu aanay jawaabin oo markay bulshada hadasho aanay madaxda u jawaabin waxba socon maayaan waa aragtaan qashinkii hoygan waa hoyga ayga waa hoyga tuugga waa hoyga sarqaanka markaa aad baad mahadsantahay dawladda hoose xaafadduna inay isku tirsanaato qashka meesha laga qaaday maanta la baneeyay inaan dabrib maalin ku soo celin ilaahay baa mahadle dawladeedu way noo dhaga nuglaatay ma sha Allah saaka markaanu hadalay 2 saac ama 3 saac inaan ka badnayn ayay naga maqnayd insha Allah waxaanu rajaynaynaa khayr fara badan waxaanu leenahay ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idinku dara miisaanka xasanaadka waxa ka dulqaadeen maatada iyo danyarta oo yarta meesha taala ee aan awood u lahayn inay iyadu wax iska qabato waanu idin hambalyeynayna si aad u balaaran gudoomiyaha degmada Maxamed Cali xildhibaan Muuse Abees iyo sidoo kale xildhibaan Shimbir oo goobtaasi u joogay nadiifinta iyo banaynta ayaa ka hadlay sida ay dawladda hoose ee degmada Burco ugu heelan tahay shacabka magaalada Burco isla markaana ay uga jawaabayso cabasho kasta oo ka timaada bulshada xildhibaan baa saaka halkan nooga timi dhaliishu waxbay saxdaa waxa dhaliisha la yiraahdo waxbay saxdaa marka loola jeedo wax toosin laakiin waxa ka wanaagsan isgarabsiga iyo wada shaqaynta iyo isu soo wargelinta waa ogeydeen muddo sanad ka yar baanu joognay waxaan ugu nima xashiishku isagoo sayladu bar u tahay maxkamaddu meel tahay xeryaha militariga kaalintii qunyardega meesha la yiraahdo xabaalaha xirsiga ilaa 6 meelood oo suuqa indhaha suuqa ah ayaa xashiishku yaalo gooba xashiish ahaan jiray maanta waxa ilaahay mahadiya hadii koonayaasha magaalada loogu soo qaylinayo meelaha koonayaasha magaalada ah ee magaalada ka baxsan hadii loogu soo qaylinayo waayo qorshaha iyaga bilicda magaalada iyo nadaafadda sanadkan aan ugu talagalay waxay ahayd awoodda ugu badan baanu saaray qashinka iyo nadiifintiisa sida uu nagu hogaaminayo maayarka iyo golaha iyaga deegaanka waxaan ugu talagalay bilicda magaalada inaan soo celino dhibtana haysataa waxay tahay koonayaashii magaalada waxa jira meelo iska xidhan oo seesiya ah oo garanwaaye ka baxeen oo garanwaayada lala eeganayo qashinkii oo lagu tuurayo dadka xaafadda qayladhaantii aad soo dirteen waan idinka soo jawaabnay meeshii aan koonaha magaalada ahayd wanaga idinku nimi wanaga idin nadiifinay waxaanu doonaynaa sida qolyihii hore u ilaashadeen inay u ilaashataan fadda Dhoobane qayladhaan baadna soo deysiin qayladhaantuna waa tii aad noo doorateen laakiin inta TV-yada isu soo taagaysaan ama aad dee media noo soo marinsaan xafiiska dawladda hoose wuu furan yahay xafiiska dawladda hoose waa furan yahay
maadaama furan yahay oo aan cid idiga celinaysaa jirin in xafiiska dawladda hoose timaadaan oo xildhibaanada iyo maamulka fulinta intaad intaba u soo gashaan aad tidhahdaan kaalayo nala soo eega meeshana way qarriban tahay annaguna waan idin soo raacayna waxaad noo dooratayna inaannu meel kasta oo qayladhaani ka timaaddo inaannu idinga wax ka soo qabanno waa wixii naloo doortay waa wixii aannu koryoonka lahayn tii curyaanta ahayd koryoonka ku soo qaad ha naloo codeeyo haddaanan hadalkiina dhegaysan waxba noqon mayno haddaanaan idiin shaqayn waxba noqon mayno waxaan idiga ballan qaadaynaa inaydaan cabasho dawladda hoose aanay idinku dhegaysan ayaan le cabdullaahi jaamac CBA TV magaalada Burco.